waxaan ku weydiinaa waaga hore odayaasha maxaa lagu xukumi jiray qofka gabar caaya ninkii gabar caaya xaal baa lagu xukumi jiray xaal ninka gabar caaya gabdhaha caaya maxaa la oran jiray waaga hore xaal baa lagu inaan tirsanayn buu ahaan jiray nin aan ragga tirsanayn ragga ahaa uma tirsanaan jirin laguma xisaabtan qiimo weyn ma lahaan jirin ninka gabdhaha caaya ama gabar wax yeela Cabdullaahi Yaasiinow waddankeena waxaan ka bixi lahaynaa dagaal beeleedyo qabyaalad wareer adiga hadda generationkaaga timekiina waxa ku qaadateen wareer iyo buuq iyo rafaad ma garad anaga generationkeena dhaxal baa nooga tagteen oo qabyaaladii iyo wixii wali waa socotaa wareerkii waana haystaa meel walba dagaal baa ka socda wareer bay u kala jabeen ma garad masiibadan marka qabyaalada iyo wareerkan xagee naga haysataa xagee baa iska qabsan la'ana adii nin weyn baa taa way araga waqti badan baa u soo joogtay dhibaatooyin badan baa soo xalisay xagee baan iska qabsan la'ana adeer adeer waa mahadsan tahay marka koowaad marka labaad wax walba wax ku dhacaan qadar rabbi qadar Allah aadiyaan marka Soomaaliya hadee mar fiicnayna waa jira oo anagu aanu dad yar yar aanu ahay aadiyaan marka Soomaaliya mar fiicnayna waa jiray oo anaga naga horeysay oo dhalinyaro ahay dad xoogaa soo baashalay baa jira soo raaxaystay mar ay xumaydna waa jira aye marka samal wan bala waa raggeeda rag jooga aadiyaan marka fiicnayd qadar allana waa ahayd rag fiicna waa joog aye marka xumaydna hadda qadar allana waa tahay laakiin dadka markaas jooga baan talin marka jooga baan ilaahay talada solin aadiyaan inta markaan taas uga gudbo qabyaalada horta waa wax maartay rabaani oo ilaahay dadka maartay ku abuuray aadiyaan oo jira aadiyaan laakiin qaabka maartay xun loo isticmaalo baan fiicnayn marka qabyaaladu saas weeye burburka iyo dhibaatadan iyo dagaaladan iyo waxaan Soomaaliya haysatana anigu waxaan isleeyahay markaan cabiro dadka diinta ilaahay dawlad fiican siiyo oo nabad siiyo Soomaaliya iyadoo iska liidata bay wax heshay dawlad fiican horumar bay gaadhay iyada markay san weeday waxa yiraahdeen rag iyo dumar ku sameeyay culimadii tiri war sax maahan waa la laayay ilaahay waa ka daadshay marka barnaamijka ka dambeysana kama bixin dhibaatadan ka bixilana marka waxa laga bixi karaa in ilaahay nool noqdo wix la sameeyo dhan laga noqdo hadii ko laga bilaabo hadii ko dib loo laabto message-ka kale hadalka aad kaftano aad wiil soo hatiri anaga waxaan nooga tigsan qabyaalad iyo odayaasha naga horeeyay waxaan sameeyay baa tiri moogta aadiyaan anaga jilka aan ugu yarahay ragaanigii waa weynaa aad bay xushoon jireen waxyaalaha qaarkood jilka hadda joog halkan timaa ka xirta maartay waxba kama xishoodo nin afar gabdhood nin afar nin oo gabar fooleys waliga maartay badana hadda joogta darooga xashiish bay cabaan wadanka xashiish baa imaaday qamro oo awal hore u waa isleenahay wadanka dadkiisii baa dhaqankii ka dhumay xishadkuna ka dhumay iyo qodob hore ay galeen aadiyaan marka generation dhalinyarada yar yar hal message oo watigs ma jira hal dardaarana oo dhalinyarada asiinis muxuu yahay message-ka waxaan uga tagayaa horta marka koow in ay iska daayaan calaamadaha dadka shisheeye iyo meelaha reer galbeedka waxa in iska daayaan oo dhaqankooda iyo diintooda ay ku adkaadaan xishoodaana ayna gartaan wadankooda iyo maaragtay iyo wadankooda ina maartay hadda hal qof oo kaligiis wada ku haminay ma jiro qof wuxuu isleeyahay wuxuu leeyahay wiilka soo dhan yaa warastay Yurub aan socdaa fikir fiicanna ma qofku ama ku qado ama ku barwaaqaysnaado waa inuu guriga soo joogaa aadiyaan ilaahay anaga meeshan buu nagu abuuro ma garad dhulkan quruxda badan ilaahay wuu awooday inuu anagoo yuhuudan abuuro oo dhulka yuhuudan nagu abuuro laakiin ilaahay wuxuu nagu abuuray Soomaaliya oo wadan muslina boqolkiiba 99 dad sunni yihiin diinta islaamka haysta ilaahay wuxuu noo sameeyay asxaan weyn ilaahay wuu awooday Ameerika inuu nagu abuuro Ameerika iyo Yurub waa dad hadda iska leh hadda waxay sharciyeeyeen qoomuluudnimo dadka iska leh waa qoomuluud wadamadaas reer galbeedka qofka qoomuluudka waxa kama sheegi kadib dadkeenina maanta meeshaas dhalinyarada soo koraysa meeshaas waxa u arkaan janno marka waxa weeye dhibaata dhalinyarada ku dhacday
هذا النهار أيقول دول كاس قالة وهمينية وتهريبية أيقول دول قالة وصعد الدمانية تهريب كل دمانية تاني هو أرنتاس الموضوع كهذاش هاي الموضوع الصوماليين وكهذاش أديان دولة تحت وكهذاش أديان مرة بدن بعقله كان بدل السجلينيو والسجل أنيو وصحراء كوعقنية وسكس عنية وهدنا ماشي يتجيان حتى أنتي ما تكبحستا أنت أسكبحستا ماشي يتجيان أي سفي عنين والله الله الله الموضوع والله هذا الشيء دولة مسؤولين دولة والله الله وحوح قرن الصومالية ويهالله ويسكدين وياه أنت أسوأ كسي السعودة بركة أنا رفتي وأسي مارت وأسي تأكيدين وأسي دريا تلاذيد قادن ما يوم لوجي موقت لكن وأسي دريا وحن لا ودنكين إيمان صدا نك هذا كجامعة كبح وحكولية هي ما شان شقة كلمة هي بنان كان عادية إنها أما هايد أو شقيه إن كل جيس أو شقه إنه كبلابه وفر بقول دور يخدح بقول دور مليها لا بقول دور إنه كبلابه مرة ما تشوف هايدان هذا موجود كون هذا ما شان فإنه بلون هايدان لول يراك شقينية هميك تون دور بقاته يوحل بيشوا وصدح بقول دور عاديان يا عاديان مرة ما صعدان قضب كلا نوشن هوس بالقص أبورا وحول بهوس وحول هوس بالقص أبورا dadka taajiriinta arkaysi dambas ka soo bilaabeen waxay baa ka soo bilaabeen marka dhalinyar intaas hal qodob oo kala adeer inuu waxa ku weydiina waaga hore odayaasha maxaa lagu xukumi jiray qof gabar caaya waxa lagu xukumi jiray afka u dhaw waxana waa dhaqan haye oo waxa weeye waa dhaqanka qabiilka haye waxana waxa weeye waa beeda markaa wixii ka jiray oo dawladaha iyo waxaas marka dhaqanka kulay anigu intaan ka warqabo ninkii gabar caaya xaal baa lagu xukumi jiray xaal ninka gabar caaya gabdhaha caaya maxaa la oran jiray waa xaal baa lagu inaan tirsanin buu ahaan jiray nin aan ragga tirsanayn ragga ha uma tirsanaan jirin lagu xisaabtan qiimo weyn ma lahaan jirin ninka gabdhaha caaya ama gabar wax yeela beelo dhan oo dagaalamana gabar ama la caayay ama la farxumeeyay bay ka gaci jiray ama wax yar lagu dhuftay baa beelo dhan isugu rugmi jiray isugu babi jiray maanta waxaan haysanaa hadda joogtaa way fududahay gabdhaha inay caayaan inay kufsadaan inay fayl ka galaan kullu waa fududahay